mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Burco iyo shirkadaha hiliblayaasha magaalada Burco ayaa maanta si rasmi ah heshiis ku saabsan sidii loo ilaalin lahaa nadaafadda deegaanka isla markaana loo joojin lahaa xoolaha lagu qalo xaafadaha loona geyn lahaa goobaha ay dowladda hoose ee Burco ay ugu tala gashay ayaa lagu gaaray xarunta dowladda hoose. kulankan ayaa waxa goob joog ah mas-uuliyiinta shirkadaha hilibka qala iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco. markii uu kulankani soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco iyo xildhibaanadii kulankan goob jooga ka ahaa. halkan waxaan shir ballaaran oo wacyigelin iyo iclaan bay isugu jira anigii xildhibaanada golaha deegaanka ka tirsan aanu ku qabanay xafiiskayga. waxaanu la shiray oo aanu ku wacyigelinay waanu waqti siinay hilibleydii magaalada Burco haday tahay kuwa geela qala haday tahay kuwa looda qala haday tahay kuwa ariga qala. waxaan halkan si ballaaran oo mug iyo miisaan la u gaarsiinaynaa xaqna loogu leeyahay maadaama aanu go'aamo soo saarnay in aanu si ballaaran dadka u wada gaarsiino oo qofka muwaadinka ah xaq wuxuu u leeyahay kuna caban karaa awaamiirta iyo go'aamada aad soo saarteen leeyma sheegin buu oranay. hadda se waxaanu leenahay nuurna xarow maqal qof kasta waa gaarsiinaynaa hilibka ku qala magaalada Burco. Burco waa magaalo madaxdii labaad ee dalka population aad u fara badan baa ku nool. waxa la caadaystay oo magaalada kooriyaashidii lagaga qalaya xoolihii noola geela looda ariga intaba waa lagu qalaa. kawaan weyn oo cusub oo kii hore ka casriyeysan oo ka qalab badan oo dhaqaatiirti joogto oo dhismihiisa iyo balcu ku fadhiya 3 jeer ka badan kii hore ayaa halkan ka dhisanoo u sheegnay imikana ku celcelinayna wixii ku xiran shirkadda Dayib iyo iyaga lacabatina waa waxaanu dhamaynayno. laakiin go'aan waxaanu ku gaarnay oo maanta halkan aan uga cilaaminayna bisha soo socota hadii alla yiraahdo ee September 10keeda ugu dambeyn inaan la arki karin meesha xeradhiigta cusub ee shirkadda Dayibna joogto neefka xoolaha lagu qalo saddexda nooc ku doonaha ahaa neefkii meel kale lagu qala iyo qofkii ku qala waa dambiile. ballanna waxaanu ku qaadaynaa inaanu kala wareegno hilibkiisa isagaba oo aanu dadka maxaabiista iyo dadka xanuunsanaya dhakhtarka ku wareejino isagana aanu xidhno. halkan xafiiska xogayaha fulinta dowladda hoose ayaan halkan waxaan kula shirnay inagoo xildhibaanadii golaha deegaanka degmada Burco qaar ka mid ah gudidii ama dadka xoolaha ku qala magaalada gudidii xoolo qaatada nooc kasta ahaadeen haday lootay iyo haday geeltay haday aritayba waxaa la socotay muddo fara badan inay soo noqnoqonaysay cabashada bulshada gobolka Togdheer inay soo sheegayeen oo wasaaradda caafimaadka inoo soo sheegaysay in magaalada suuqa lagu qalo wadooyinka xoolaha oo dad aan u naxayn bulshada iyo gobolka oo runtii aad iyo aad runtii aan naxariis ku jirin ay ku qalayeen intaaba u digaynay intaaba wala hadlay. laakiin maanta waxay soo gaaray kama dambeyntii halka baan isugu nimi gudiyadii oo dhan waxaan isku afkaranay oo u sheegnay go'aamadii aanu maaragtay soo saarnay oo ahayd 10ka bisha 9aad wixii ka dambeeyay cidii lagu qabtay iyadoo ku qalaysa banaanada talaabo adag baan ka qaadinaa loo kama dambeyn way go'aan kama dambayna dadkayga u naxaynaa bulshada u naxaynaa. marka 10ka September waana wacyigelin badan oo ka samayn doona magaalada. mubaarak iyo xogayo idin sheegeen go'aan golay go'aan dawladeed wixii cabasho ah waan ka hadlayaa wixii cabasho ah qoliyo dadku laba isugu jira hiliblo markii hore meesha ku xaraysnaa iyo qolaan ku xaraysnaa oo dibadda ku qali jirtay labadaas oo qaybsanaayeen. marka qoladan imika hadlaysa waa qoladii dibadda ku qali jirtay iyagii shirkadana way isu jiidanaa insha Allah bismillaahi kariim oo wada hadalsiinayna waxay dadku ku culaysana shirkadda waa kala hadlaynaa intana waa dhamaynayna insha Allah bismillaahi kariim. Cabdi Qani Baafo warbaahinta STN
magaalada Burco.